bahalkan ariga la yiraahdaa sidiisaba waa qudaar. qudaartu imisay joogi kartaa? qudaartu waxay joogi kartaa waa wax adigu 2 toddobaad 3 toddobaad haddii ay dhaafto waa cunis ma leh. midda kale qudaarta waxaa cuna bahalla yaryar sida maaragtay jiirka iyo maaragtay bisadaha iyo waxyaalahaasaa cuna. arigu marka waa la mid, waxaa cuna bisadaha, dawacada, waxyaalaha yaryarkaayo maaragtay gaduudanaha waxaasaa cunaya. marka ari waa qudaar haddii aad maqasho waa nuucaas, wax uu qudaarta ka duwan yahay male. marka dhinac kale markii aad ka fiiridana waa nimcooleyda kuwooda ugu qaalisanuu ka mid yahay. waxyaalo badan buu wuxuu dheer yahay geela, lo'da, waxyaalahaasoo dhan waa ka qiimo badan yahay markii dhinac kale laga fiiriyo. qiimaha uu dheer yahay waxaa ka mid subagga saa'idka ah oo markii la lulahayo laga sameeyo kow waa ka mid oo laga lulo caanaha laga lulo. waxaa kale oo ka mid ah in aan la tabayn neefkii laga wado oo maaragtay aad maanta ka suuq geysato ma la tabahayo oo maaragtay neef geela haddaad waddo maanta xeradu faaruqay noqonaysaa, asaga ma la tabayo. haddaad 3 neef 4 neef wadato xeradu waa iska buuxdaaba, waa barakaysan yihin. halka aad nagala socotaanna waa geella janaal. ugu imow halkan muuqaalo taya leh, dhaqankii, hiddihii, dhulkii hooyo oo carafta lahaa. marka sibskaraybta, laygta, sheertu waa dhankaaga. aad baad u mahadsan tihiin. muuqaalo badan oo xiise leh halkan kala soco. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.